Afrika waxaa soo maray hogaamiyaal badan. Hogaamiyaashaasi qaarkood waxay ku guuleysteen inay dadka ayaga taabacsan ay madaxdu yihiin ay dhiirigeliyaan oo ay noloshooda saameyn wanaagsan ay ku reebaan. Halkan aan ku eegno 10 hogaamiye ugu wacnaa abid ee soo mara qaaradda Afrika. Daawasho wacan. Nambarka 10aad Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf waa madaxweynihii 24aad ee soo mara dalka Liberia. Waxay noqotay haweeneydii Afrika ee ugu horeysay xil madaxweynenimo dal loo magacaabo. Waxay ku guuleysatay xilka madaxtinimo 2005 waxayna xafiiska la wareegtay 18 January 2006. Dad badan ayaa amaanay waxayna ku amaaneen in Liberia ku soo celisay xasillooni, deganaan, sanado badan oo dalkaasi ku jiray dagaal sokeeye. Waxaa la guddoonsiiyay biladda loo yaqaan Nobel Peace Prize-ka taasoo la siiyo dadka ka shaqeeya nabadda ama horumarka sanadii 2011. Awoodeeda xukun ama maamul dadka u dhashay Liberia waxay rajayn kareen mustaqbal ifayo ama ifaalo hor leh oo u rajaynayeen wadankooda. Nambarka 9aad Samora Machel. Samora Machel wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Mozambique. Wadanka ayuu adeegayay. Wuxuuna ahaa madaxweyne laga soo bilaabo goortii ay Mozambique xorriyadda qaadatay oo ahayd 1975 ilaa uu ka dhintay 1986. Wuxuu ahaa hogaamiye military iyo mid u dooda isbedel bulsho ama wax loo yaqaan socialism-ka. Wuxuu ahaa hogaamiye fikir oo meel dheer wax ka arka. Dadka Mozambique xushmad bay u hayeen. Xitaa maanta ficiladiisii iyo fikradihiisii wacnaa waxay caawiyaan dad badan oo u dhashay dalka Mozambique. Wuxuu ku dhintay shil diyaaradeed. Shilkaas oo ay adag tahay in la sharxo sidii uu dhacay. Nambarka 8aad Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya. Kenya waxay xornimada qaadatay 1963. Jomo Kenyatta waxa uu xukumayay Kenya ilaa markii ay xornimada qaadatay oo ahayd 1963 ilaa dhimashadiisa 1978. Wuxuu ahaa ra'iisul wasaare sanadihii u dhaxeeyay 1963 ilaa 1964. Wuxuu noqday madaxweyne 1964 ilaa 1978. Wuxuu Kenya u horseeday deganaan iyo kobac dhaqaale. Wuxuuna ka dagaalamayay fikirka reer galbeedka ee hanti wadaagga iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Sidoo kale wuxuu kormeer ku sameeyay ogolaanshaha u ogolaanayay dalkiisa UN-ka. Nambarka 7aad Thomas Sankara. Thomas Isidore Noel Sankara wuxuu ahaa madaxweyne sanadii u dhaxaysay 1983 ilaa 1987. Wuxuu awoodda xilka qabtay 1983 asagoo 36 jir ah. Dadaal ayuu sameeyay oo ku baabi'inayo musuqmaasuqa iyo jiritaanka awoodeed ee gumeystihii Faransiiska. Dad badan ayaa ugu wici jireen African Che Guevara. Wuxuu ahaa kabtan military mid u dooda midowga, mid taageero u dooda siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo sinaanta ragga iyo dumarka ama waxa loo yaqaano equal rights. Wuxuu ahaa mid ay ku daydaan Afrikaan badan 1980 xataa maanta waa mid ay ku daydaan in badan oo u dhalatay Burkina Faso. Waa ay amaanaan waxaynu ku amaanaan isdhexgalkii uu sameyn jiray iyo isla weyniyaradiisii. Sankara waxaa dil qorshaysan ku dilay kooxo hubaysan 15 February 1987. Nambarka 6aad Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba wuxuu aasaasay ururka Mainstream Movement National Congress oo loo soo gaabiyay MNC Party. Waa urur u dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Congo. Waxa uu door weyn ka qaatay ololeynta xornimadoonka ay ka rabeen Belgiumka. Wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay si dimuqraadiyad oo loogu doorto dalka Congo. Ninkan oo ah hogaamiye xornimadoon ah wuxuu ku baaqayay inuu helo midow ka dhac wadanka gudihiisa iyo dhammaan xornimada qaaradda Afrika. Kadib markii wadanka la wareegay hogaamiyaha militariga Joseph Moto, hogaamiyihii weynaa Lumumba waa la xiray waxaana loo kaxeeyay Katanga halkaas oo lagu dilay 17 January 1961. Nasiib daro qaramada midoobay ma aysan soo fargelin si ay u badbaadiyaan. Nambarka 5aad Julius Nyerere. Julius Kambarage Nyerere waa mid ka mid ah dadka aadka loogu xushmeeyo qaaradda Afrika. Wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Tanzania. Xafiiska wuxuu qabtay 29 Oktoobar 1965 ilaa 5 November 1985. Si mutadawacnimo ayuu xilka isaga degay sanadii 1985. Isaga ayaa xilka mar kale loo magacaabay markii loo ogolaaday dawladdiiskeeda isku maamusha. Sanadii 1964 wuxuu wadaxaajood la galay midowga Zanzibar. Natiijadaas oo ka dhalatay Tanzaniyada aan maanta naqaano. Hogaamiyahani waxa uu naftiisa ka ilaaliyay musuqa. Sidoo kale madaxdii isaga la mid ahayd oo xilligaas jirtay aad bay u xushmeyn jireen. Nambarka 4aad Haile Selassie. Waxa uu xubin ka ahaa boqortooyadii silnoomiga ee ka arrimin jirtay dalka Itoobiya. Waxa uu Itoobiya adeegay isagoon boqor ahayn intii u dhaxaysay 1916
ilaa 1930 iyo sidoo kale waxa uu boqor ka noqday dalka Itoobiya sanadii 1930 ilaa 1974. waxa uu la dagaalamayay duulaankii Talyaaniga sanadii 1936 shirkii golaha qaramada midoobay. waxa uu dhaleeceeyay adeegsiga hubka kiimikada ee Talyaaniga kula kaceen dalkiisa intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Talyaaniga. waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray bilowga ururka midowga Afrika. aragtidiisa ayaana dhalisay Itoobiya inay xubin ka noqoto dastuurka qaramada midoobay. nambarka 3 Alpha Omar Konare. Alpha Omar Konare waxa uu noqday madaxweynaha dalka Mali 2 jeer intii u dhaxaysay sanadii 1992 ilaa 2002. muddadii madaxweynaha waxa uu kor u qaaday dhaqaalaha waddanka, waxa uu dardargeliyay dimuqraadiyadda, waxa uu hogaamiye ka noqday midowga Afrika intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2008. nambarka 2 Kwame Nkrumah. waxa uu ahaa hogaamiyaha Ghana laga soo bilaabo 1951 ilaa 1966. wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Ghana. waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka midnimada Afrika oo markii dambe noqday midowga Afrika. waxa uu ahaa qof si furan ugu doodi jiray jiritaanka Afrikaannimada. nambarka 1 ee ugu dambeeya Nelson Mandela. Nelson Mandela waxaa lagu yaqaanaa inuu lug ku lahaa dhaqdhaqaaqyadii ka hortagga midab kala sooca Koonfur Afrika. waxaa dhiirigeliyey Mahatma Gandhi. hogaamiyahan sumcadda caalamiga leh waxaa hareeyey olole nabaddiida oo ka dhanaa dowladda Koonfur Afrika iyo siyaasadda cunsuriyadda. markii dambe waxa uu noqday madaxweynihii Koonfur Afrika laga soo bilaabo 1994 ilaa 1999. maanta waxaa lagu tiriyaa inuu yahay astaanta nabadda adduunka. waxaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha ugu wanaagsanaa taariikhda Afrika. wuxuu ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize sanadii 1993.